maalin maalmaha ka mida macallin ayaa soo galay fasal isaga oo aan hal eray oo dhan ayaa uu soo qaatay xabad tamaashiira waxa uuna samuuradii ku sawiray xariiq dheer kadibna waxa uu u jeestay ardaydii iyo xariiqan u ekeysiin kara mid gaaban isaga oo aan taaban nabiga ku salliya ardaydii fasalka ayaa qosolay waxayna is yiraahdeen macallinkani miyuu waashay sidee ay taasi suurtagal ku noqon kartaa mid ka mid ah ardaydii ayaa yiri hadii aad rabto inaad gaabiso marka hore tirtir ama in ka baabi'i macallinkii waxba ma oran waxa uu si degan ugu laabtay sabuuradii waxa uu xariiq kale oo ka dheerkii hore ku sawiray hoostiisa kadibna dib ayaa uu istaagay isagoo degan hadda maxaad aragtaan ayaa uu weydiiyay ardaydii hore ayay u soo fadhiisteen hadda ayayna fahmeen casharka xariiqii hore waxba iska ma bedelin xitaa wax yarna laakiin hadda waxay u muuqataa mid ka gaaban sababtoo ah waxa agteeda yaala xariiq ka dheer horumarka dhabta ah kuma dhisna inaad dadka kale wax qabadkooda yareysid ama aad ku dhaganaatid oo xaasidid waxay ku dhisan tahay inaad adigu marka hore naftaada horumarisid marka aad sidaas samayso dunidu iyada arki doonta farqiga adigoon xitaa hal eray odhan waayo adigu naftaadii ayaad horumarisay oo aad ku dadaashay inaad isaga ka horumartid adiga oo aan isagana waxba u dhimayn ama aan ka yareynayn